Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka Samawada ee YouTube soo dhawaada. Ka mid tahay kumanaanka qafood ee ku dhibaatooda khudbad jeedin. Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, haddaba muuqaalkan adiga ayuu ku quseeyaa. Ugu horeyn, waa maxay khudbad jeedintu? Khudbad jeedintu waa inaad fikir cusub ama talo aqooneed uga sheegto meel fagaare ah ama meel dad badan ay joogaan. Khudbadda aad jeedinayso si ay u noqoto mid tayo leh, waxaa lagama maarmaan ah inaad raacdo tallaabooyinkan. Qodobka koowaad, u furfuro khudbadda si degan. Bilowga khudbadda waa shayga ugu muhiimsan ay tahay inaad ilaashato, waayo waxaad soo jiidanaysaa dadka bilowga khudbadda. Dadkuna waxay ogaanayaan in khudbadaadu ay tahay mid tayo leh ama mid bilaa tayo ah. Qodobka labaad, waa inaad naftaada ku kalsoon tahay in badan, waayo tani waxay kaa caawinaysaa inay dadka oo idil si fiican kuu dhageystaan. Balse haddii aad ka mid tahay dadka kasii welwela, talow aniga dadka ma cajabin doonaa, dadku falcelin noocee ah ayay ka dhiiban doonaan khudbaddayda, iyo wixii la mid ah. Khudbadaadu ma noqon doonto mid tayo leh. Dadka u sheeg waxa aad ka hadlayso. Dadka oo aad u sheegtaa mowduuca aad ka hadlayso waxay kaa caawinaysaa in aad soo jiidatid dadka oo idil, dadkana si wanaagsan ayay u dhageysan doonaan khudbadaada. Qodobka saddexaad, xiriirka indhaha la samee dadka, ha eegin hal meel oo keliya. Ficilkanina wuxuu kaa caawin doonaa qodobadan: 1. Inaysan dadku kaa mashquulin ama ay taleefan iyo waxyaabaha la midka aysan ku mashquulin. 2. Inaysan kaa caajisin. 3. Inay danayn gooniya siiyaan mowduuca aad ka hadlaysid. Maxaa ka mamnuuca khudbad jeedinta? Marka aad khudbad jeedinayso waa inaad iska ilaalisaa qodobadan. 1. Xishoodka. Ka takallus xishoodka. Xishoodka aan kuu sheegayo waa midka kaa hortaagan inaad ka khudbayso meel fagaare ah. Qodobka 2. Baqdinta. Waa inaad ka hortagtaa dareenka beenta aad iska dhaadhicinayso. Naftaada u sheeg inaad hawshan jeceshahay oo aadan iska dayn karin. Qodobka 3. Degdega iyo fudeedka. Degdega wuxuu sababaa hawl kala daadasho iyo niyad, fudeedkuna wuxuu lumiyaa deganaantii aad ku qaban lahayd howlo culus. Qodobka 4 ahna qodobka ugu dambeeya, kaftanka badan. Way wanaagsan tahay inaad khudbadaada ku soo dartid xoogaa kaftan, balse haddii uu kaftankaagu bato, khudbadaadu ma noqonayso mid dadka oo dhammi ay xiiseeyaan. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada. Fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.